kaygu wuxuu joogay 4 bilood oo geeridii Mustafa bishii afraad buu galay inta muxuu u noqon waayay waalid caasi maanta kolku buugii uu soo bandhigay waalid caasi uu u noqday inankayga waa la bahdilaya waxaanu ahayn baa lagu sheegaya aabihii baa loo adeegsaday annaga inankayga waalid caasi maaha waa inan karaamo ilaahay siiyay waa inan haybad ilaahay siiyay ibn aadan intu waalida daci ay buu inankayga waalida daci maxay ahayd inankayga dawladda xidhay dawladdaana haysata oran lahaa inankiisa inuu horta cadow jabiya ma ahayn ragaysayaana inuu maxay ahayd maanta lugta u qabto ma ahayn kaygu wuxuu joogay 4 bilood oo geeridii Mustafa bishii afraad buu galay inta muxuu u noqon waayay waalid caasi maanta saaka waxa la ii sheegay inankayga in la xidhay inuu aabihii xidhay laakiin aabihii muu xidhin aabihii dawladda ayaa u soo dhex martay inankayga dawladda xidhay maanta gelinka hore magaalada Hargeysa waxa lagu xidhay abwaan Cabdiraxmaan Abees oo qoraana sidoo kale ah oo magaalada Hargeysa lagu xidhay ciidanka booliiska iyo waliba aabaha dhala ayaa gelinka hore maanta warbaahinta la hadlay telefishinka MMTV waxa la soo xidhiidhay oo aanu hadda soo gaarnay qoyska Cabdiraxmaan Abees hooyadii iyo walaalihii Ismaaciil Xamse Nadra iyo hooyadii Koos hooyo Koos ayaan ugu horeyn telefishinku wareys ka qaadi doonaa hooyo soo dhawow Cabdiraxmaan Abees wiilkaaga la xidhay aabihiina waxa warbaahinta ka sheegay waalid caasi iyo ciidanka booliiska Soomaaliland oo hadlay xadhiga inankaaga sidaad u aragtaa eedeynta loo joojiyay maxaad kaga jawaabi lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala maxamed anigu waligay TV Soomaan fadhiisanin kamanaan hadlin laakiin maanta way igu kaliftay inaan soo fadhiisto naftayda waan ilaa aan soo fadhiisto naftayda waan qancin karuwa inankaygu maxay ahayd Cabdiraxmaan inankayga Cabdiraxmaan waalid caasi maaha ilma xunna maaha xaqa ummadda oo dhan buu u doodaa waalid caasi shaqo kuma laha anigu 12 caruur aan dhalay inaan tiyo yar ba iga siqirtay maxay 12 kala ii taaba galay 12 ii taaba galayna bari dhaweydina baa la iga dilay oo si xaq darra la iga dilay anigu geeridii wali ninkii inankayga dilay lama dilin habeen iyo maalin baa anigu waanooya hooyo tiiranyaysan baanahay hooyo inankeedii xaq darra lagu dilay baanahay hooyo aan geeridii inankeedaba aan oohinteedii wali ka qalalin ayaaban horta anigu anahay hooyo macaan laho dhiikar laho xanuuna iskalana waanahay maanta saaka waxa la ii sheegay inankayga in la xidhay inuu aabihii xidhay laakiin aabihii muu xidhin aabihii dawladda ayaa u soo dhex martay inankayga dawladda xidhay annaga inankayga waalid caasi maaha waa inan karaamo ilaahay siiyey waa inan haybad ilaahay siiyey waa inan ilmo baari hadduu yahay baari ilaahay ifka hadduu keeno baariyada ayuu ka mid yahay lambar 1 baariyada annaga daa waalidka ah waalidada kale oo dhan ayuu inankayagu u jiidnaxa u damqada waa xaq u dirir wixii uu ka hadlaa waa xaq dadka inaan la dulmiyin iyo dulmiga ayuunbu ka doodaa had iyo jeer uu ka hadlaa ummadii ilaahay xaqliyadii dhammayd ee halkay isugu timid dhalinyaro lahayd waayee lahayd maxay saraakiil lahayd cid walba lahayd salaadiid lahayd waa lagu bahdilaya inankayga waa la bahdilaya waxaanu ahayn baa lagu sheegaya aabihii baa loo adeegsaday aabihii wuxuu yidhi waxba kama jiraan inanka uu ku tilmaamay taa aawadeed ayaa anigana halkan soo fadhiisistay inaan deedifeeyo khaladaadka inankayga lagula kacay bas maxay ahayd masabidka ah ee waa waalid caasi loo soo adeegsaday waxa ay fiicna waxay ahayd dawladdu inaanay aabihii u soo adeegsanin awalba way xidhi jireen inankayga inay siday u xidhi jireen ay u xidhaan inankayga waa la xidhay horaa loo xidhay wadgabayday baa lagu xidhay 3 bilood oo dhowdhow buu xidhnaa maxkamadii haddana waxay yidhaahdeen abwaankan oo xurriyadiisii u soo celinayno waxba waanu ku weynay haddana buug buu maxay ahayd uu qoray maskaxdiisii baa ku baxday maalkiisii baa ku baxay waqti badan buu siiyey culays badan abwaanadu buugaagta ay qorayaan waxba kama duwanin buugaagtii waa la xidhay sanadii 8 bilood muddo ah bay xidhnaayeen waxay yidhaahdeen buugtii waxba waanu ku weynayay hana laga rarto habeen waka dadna buugii ayuu soo bandhigay qofkaagu muddo uu kugu noqdo uu qofkaagu ku doonayo inuu samcadaada uu meel kaga dhaco adiga ku xumeeyo
طبعا وحي كلا عدوغاغنا وكا فايديسنيا لكن waxyaabuhu aabihii inanka uu ku sheegay ma aha inankaygu ma aha ibn aadan inta waalida daciyay inankaygu waalida daciyay kolku aabihii xanuunsaday maxay ahayday kolku xanuunsaday aabihii wuxuu joogay Cabdiraxmaan Ingiriisku joogay aabihiina way wada hadleen oran lahaa inankiisa inuu horta cadow jabiya ma ahayn ragaysayaana inuu maxay ahayday maanta lugta u qabto ma ahayn maalinta ka horeysayba wakalaha mahba mixita u soo qaatay baa jirtay imka ma haye ulaha waa inuu xaq ka hadla waa inuu maxay ahayday wixii khaldan u sheega taabo uu ku taageeray laakiin mid yahay intuu fadhiisto maanta inankiisiyo cadow badan halka intuu soo fadhiisto inankiisi inuu aflagaadiyo ilmihiisi waxaan ahayn uu ku sheego horta waa nusqaantaas isagaba way ku taalaa kaygu wuxuu joogay 4 bilood oo geeridii Mustafa bishii afraad buu galay inta muxuu u noqon waayay waalid caasi maanta kolku buugii uu soo bandhigay waalid caasi uu u noqday loo soo adeegsaday aabihii maxay ahayd inankayga dawladda xidhay dawladdaana haysata isagana ku afgobaadsa ana xidhay noo dhawaa la yidhi adigu noo maxay ahayd arrinka noo fuli kolka inankayga waxa loo xidhay bandhiga iyo mujtamaca faraha badan leh u soo baxay ee taageerayay hadalkiisa iyo haybadiisa aniga inankayga lagu xidhay dawladdaana ka dambeysay macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada Kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo xidhmada casriga ah ee Kaynaan waxa kale oo prepaid-ka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 Kaynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada Kaynaan oo ku shaqaynaysa muddo 24 saacadood ah